asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan ardayda iyo dadka jecel in ay kororsadaan cilmiga ama luuqadaha kusoo dhowaada aflax online oo idiin soo diyaariyey barnaamij kale. barnaamijkan ayaan waxaan ugu talagalnay ardayda bilowga ah ee baranaysa luuqadda afka ingiriisiga ee ugu hooseysa. casharkan ayaa waxa uu yahay cashar sidaan idiin sheegayba bilow ah. marka laga tago luuqadda afka ingiriisiga alfabetiska, waxa uu qofka uu bilaabaa in uu barto ereyada dhawaaqooda iyo sida loo akhriyo iyo sida loo isticmaalaba. erey walba oo ka mid ah ereyada luuqadda afka ingiriisiga waxa uu u qaybsamaa qayb ka yahay qaybaha loo yaqaano part of the speech ee ah qaybaha hadalka uu u qaybsamo. qaybahaas oo aanu maanta qaarkood aanu doonayno inaanu ardayda aanu la wadaagno. hase ahaatee qofka marka uu baranayo luuqadda afka ingiriisiga, haddii uu ku wareero waxa loo yaqaano grammarka ama naxwaha, waxa uu ka xanibaa ardaygaasi inuu horay ka barto ereyada, waxaadna iska ilaalisaa qaladka. luuqaddu waxa ay la mid tahay sida caruurta marka ay baranayso afka oo kale. caruurtu waxa ay samaysaa qaladaad badan, way isku dayaan, kadibna waxaa saxa waalidiintood. waxa ay ilmuhu marka hore bilaabaan in ay yidhaahdaan hal erey. haddii uu yahay ereygaasi a ama b ama c, iyo haddii uu yahay book ama table oo kale. haddaba sidaasoo kale qofka weyn marka uu baranayo luuqadda cusubna waa in uu ka soo bilaabaa halka uu cunuga yar uu ka bilaabayo barashada luuqadiisa hooyo ama tan uu ka daawado cunuga yar tv-ga. haddaba qof weyn haddii aad tahay oo aad jeceshahay in aad baratid luuqadda afka ingiriisiga ama luuqad walba, waa in aadan ka qajilin in aad isticmaashid ereyada aad baratid. waa inaad si gooniya iyo si guudba aad ugu dhawaaqdaa. haddaad si gaara qof ugu sheegaysid iyo haddaad dad kala duwan aad u sheegaysidba, waxaadna mar walba isku daydaa ereyga aad baratid in aad isticmaashid si aad u xasuusatid. casharka yaga maanta aynu gudihii u gudagalno. casharka maanta waa erayo. casharkan waxaa iga soo codsaday gaar ahaan arday ku nool Sacuudi Carabiya oo isagu ka mid ah ardayda ka diiwaan gashan aflax online. waxa uuna iga codsaday bilow heer hoose ah in aan u soo diyaarino. haddaba aynu ku bilowno. waa maxay bilowga ugu hooseeyaanu ka bilaabi karno? waa inuu qofku u bartaa ereyada ama ereyada ugu fudud ee maalintii waxa la isticmaalaa. haddaba waa kuwan qaar ka mid ah ereyada maalintii la isticmaalo. nownku waa magacyo. magacu waa haddii uu yahay magac qof, shay, meel ama fikir. haddaba qaar ka mid a halkan ayaan idinku soo diyaarinay. book waa book, waa magac, waxaana loo yaqaanaa kitaabka wax lagu qorto. table sidaasoo kale waa miis oo ah halka loo isticmaalo in ama cuntada lagu karsado ama alaabta la dul saarto. waa shay isaguna markaa. car gaari waa aalad la isticmaalo oo iyaduna waa magac, waxaa loo yaqaanaa aaladaas bini aadamku ay isticmaalaan oo ay ku gaaraan meesha ay markaas u socdaan. pencil qalinqori waa isaguna waa shay qofku uu isticmaalo marka uu doonayo inuu wax ku qorto. house waa guri, isaguna waa meel. house isaguna waa magaca loo yaqaano guriga lagu nool yahay. waa meel, waa jikada wax lagu karsado. door waa shay oo waa albaab. chair kursi waa shay isaguna. cup koob waa koobka lagu shubto waxa la cabayo, isaguna waa shay. spoon qaando iyaduna waa shay. haddaba waa kuwa qaar ka mid ah ereyada ama magacyada, waxaana loo yaqaanaa noun. kuwan badidooda waxay u badan yihiin ashyaa ama shayaasha
uu qofku maalin walba guriga ka isticmaalo. hase ahaatee magacyadu waa ay badan yihiin, waxayna leeyihiin noocyo kala duwan. kuwan waxay ahaayeen qaar ka mid ah ashyaacda aynu isticmaalno iyo magacyadoodaba. waxaanu xigi doona kuwo kale oo aanu kaga hadli doono casharadayada soo socda. haddaba aynu isku dayno qaar ka mid ah magacyadii aanu baranay in aanu gelino jumlad, iyadoo ay noola socoto turjumidda af Soomaaliya oo iyadana sidaas oo kale aad ku arki kartaan iyadoo qoraala. waxaan ardayda ku dhiirigelinayaa mar walba inay haystaan qalin iyo buug oo ay qortaan waxa ay ku arkayaan casharka iyagoo marba joojinaya screenka. I have a book. I have a book. anigu waxaan haystaa book. anigu waxaan haystaa book. I have a book. waxaan haystaa book. I waa magacuyaal, have na waa ficilkii oo waa haysashada. waxaa loo isticmaalaa wuxuu markay yihiin shay, hal shay. booksna waa magacii oo ah shaygii. ka waran haddaad odhan lahayd I have books, waxaan haystaa buugaag, eeda meesha way ka bixi lahayd. haddaba sidaasoo kale af Soomaaligana waan idin kala calaamadeeyey. I waa aniga, waxaan haystaa waa ficilkii oo waa have, book. I have a book. aynu u gudubno jumladda kale ee ku xigta. I need a table. I need a table. anigu waxaan u baahanahay miis. I need a table. anigu waxaan u baahanahay miis. mararka qaarkood dadka Soomaalida markay ku hadlayaan afka waxa ay ka tagaan ereyga aniga. qofku wuxuu ku oran karaa waxaan u baahanahay miis, waxaan u baahanahay qalin. hase ahaatee dadka ajnabiga way ku adag tahay inay si fiican u fahmaan. waxaana la oran karaa santaniga jumladaasi ma ay dhammaystiraa. marka waa in qofka Soomaaliga naftigiisa luuqadiisa ugu hadlaa si dhammaystiran oo uusan ku jirin caajis. waa inuu qofku yiraahdaa anigu waxaan u baahanahay miis, ama kii hore ahaa anigu waxaan haystaa book. aynu gudubno jumladda kale aanu baran karno maanta. I own a car. I own a car. waxaan leeyahay anigu waxaan leeyahay gaari. anigu waxaan leeyahay gaari. ereyga own waa ficil, waa lahaanshaha qofku isagu uu leeyahay. gaarina waa magac oo waa shay oo anagii hore usoo sheegnay. I get a new pencil. waxaan helay qalin qori cusub. anigu waxaan helay qalin qori cusub. anigu waxaan helay qalin qori cusub. I can see our house. I can see our house. For example, anigu waxaan arki karaa gurigayaga. anigu waxaan arki karaa gurigayaga. anigu waxaan arki karaa gurigayaga. haddaba haddii aad ereyada aanu mid ugu noqotid, inta aadan dib ugu noqon waxaan idinku kala calaamadeeyey ama aan kuugu calaamadeeyey qadad kala duwan. ereyga magacyada waxaan u isticmaalay qadda greenka saa'idka ah. meel walba oo aad jumladahaasi aad uga arkaysay qalin cagaar zaa'id ah waxaanu u waa magac. sidoo kale qaddan oo iyadu ah cagaar biyo ah iyaduna waxaan u isticmaalnay magac u yaalada. ereyga ficil kaaba ee loo yaqaana verb to be ama ficilka ahaanshaha iyaduna waxaan u isticmaalnay qad madow. qalinka casna waxaan u isticmaalnay ficilka oo verbka ah oo uu ku dhisan yahay. inta aanan u gudbin qaybta ugu dambaysa ee su'aalaha ardayga casharkan dhagaysanaya, waxaan rabaa bal dib inaan idinku soo celiyo qaar ka mid ah sentenisyada annagoo markaan u eegayna naxwo ahaan. I have a book. I have a book. anigu waxaan haystaa book. anigu waxaan haystaa book. haddaad fiirisid jumladan sida uu u dhisan yahay Ingiriiska iyo sida uu Soomaaliga u dhisan yahay way isku dhow yihiin, laakiin mar walba qasab ma aha inay islahaadaan. ereyga I have
waxa uu ku keenaa dadka Soomaaliyeed qaas ahaan dhalinyarada ku dhalatay ama wax ku baratay dibadda wareer fara badan sababtoo tahay have marar badan waxay leedahay macno kala duwan. tusaale ahaan I have a car waxaan haystaa gaari oo waa markii adiga aad gacanta ku haysatid. marka qaarkood waxaad arkaysaa dhalinyaradu inay u isticmaalaan ereyga have turjumid sax ah oo ah haysashada laakiin waxa laga yaabaa macno ahaan inuu ka duwan yahay. I have a book waxaan haystaa book. anigu waxaan haystaa book. ta ku xigta I need a table. I need a table waxaad moodaa halkan anigu need waxaan u baahanahay a tape miss. waxaan u baahanahay miss. haddaad doonto waxaa oran kartaa I need to go waxaan u baahanahay inaan tago. I need money waxaan u baahanahay lacag. I need a car waxaan u baahanahay gaari. okay ka ku xiga I own waxaan leeyahay oo gacantayda ku jiro. waxaan leeyahay oo gacantayda ku jira gaari. I own waxaan leeyahay oo aniga aan leeyahay milkigayga ah gaari. I get a new pencil aniga waxaan helay qalin qori cusub. I can see our house waan arki karaa gurigayaga. okay intaa haddaanu ka gudubno waxaan jeclahay ardayga gaarka ah ee iskuulka wax ka barta in aan halkan uu kaga soo jawaabo su'aalaha. waxaad qaadataa qalin iyo warqad waxaadna dib u dhagaysataa inta aadan su'aalaha u gudbin casharka mar labaad. kadibna waxaad buuxisaa meelaha bannaan. ta koowaad waxa aad qortaa 5 magac oo aad ku baratay casharkii maanta. waxaad qortaa 5 magac 5 nouns 5 magac oo aad ku baratay casharkii maanta. kadibna waxaad gelisaa jumlado 5 eray. sidoo kale waxaad qortaa 5 ficil oo ah ficiladii maanta aad ku baratay meesha sida I need waa ficil. have waa ficil. want waa ficil waa wixii aad samaynaysay ayagana waxaad ka qortaa 5. sidaas la aligeed waxaad ka soo samaysaa oraahyo ama jumlado adigoo isticmaalaya ama ka tusaale qaadanaya. waxaadna iigu soo dirtaa emailkayaga. casharkayaga maanta intaa ayuu ku idil yahay. waxaad kala socotaa casharada iskuulka aflax barta aanu ku leenahay youtube-ka aflax online barta aanu ku leenahay internetka ama waxaad nagala soo xiriiri kartaa barta aanu ku leenahay facebooka. sidaasoo kale ardayda sida gaarka ah wax uga barata ee iska diiwaan gelisay ama ogol in ay khidmad iskuul ay bixiyaan waxay nagala soo xiriiri karaan fiberka ama skype-ka oo aanu si gooniya wax ugu bari doono. sidoo kale ha hilmaamin inaad naga raadisid twitterka iyo instagram-kaba adigoo ku raadin kara af Soomaali iyo aflax online. ta aan casharka ku xiga aan ku kulmi doono waa aniga oo ah Axmed waxaan idinkaga tegayaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.